السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دaawadeel kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta xayawaanada oo aad kala socotaan Naalaya Productions. Waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah Haaji. Barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadan doonaa xayawaanka loo yaqaano libaaxa. Libaaxa waxaa lagu magacaabaa boqorka xayawaanka sababtoo ah waxa uu ugaarsadaa dhammaan noolaha ku dhex nool kaymaha. Libaaxa kan labka waxaa loo yaqaanaa aar halka kiisa dhediga loo yaqaano gool. libaaxu waa xayawaan aad u khatar badan waxa uuna ku nool yahay qaaradda Afrika iyo Hindiya oo ka mid ah qaaradda Aasiya. Libaaxu waxa uu cunaa hilibka xoolaha, dadka iyo dhammaan xayawaanada. Libaaxu waa boqorka duurjoogta. Libaaxa ugu weyn waxa uu ku nool yahay koonfurta Afrika. Gadaal looga sawiray indho si libaaxyada looga reebo. Muddo aad u fog oo ku siman ilaa xilligii la bilaabay dhaqashada lo'da ee Afrika, waxaa dadka dhibaato weyn ku ahaa in libaaxyada oo xoolaha ka laaya. Waxaa qoyska dhibaato ugu filan in xitaa hal neef oo irmaan ama riman uu libaax ka dilo. Tusaale ahaan, dalka Botswana waxaa la sheegay inay ku nool yihiin ilaa iyo 3,000 oo libaaxyo ah, kuwaas oo markii hore ku jira seerooyin loogu talagalay, balse abaaraha iyo xaalufka sii kordhaya ayaa waxaa aad u badanaya weerarada iyo dhibaatooyinka dhex maraya dadka iyo libaaxyada. Dadka hantida leh ee seerayaasha ku xanaaneysta xoolahooda ayaa samaystay xayndaab silig ah si ay libaaxyada isaga celiyaan, balse dadka aan hantida lahayn ayay arrintan ku adag tahay. Habeenkiina waxa kaliya ay xoolahooda ku ilaashadaan ayaa ah ooda iyo xayndaabyada kale. Sidoo kale waxay haystaan eeyo ku ciya marka uu libaaxa soo dhawaado. Waxaa soo baxay fikrado cusub oo looga hortagi karo weerarada libaaxyada. Ninka lagu magacaabo Neil Jordan ayaa muddo 30 daqiiqo ah daawanayay libaax bursanaya deero, balse markii ay ku soo jeedsatay deeradii, libaaxii ayaa istaagay wuuna isaga tagay. Taas waxay ku abuurtay fikrad cusub inuu curiyo. Waxa uuna ogaaday in libaaxa uu dhibsado eegmada, xayawaan soo eegayana uusan ugaarsan karin. Sidaas darteed ayuu ku fikiray inuu indho gadaal uga sawiro lo' si taas ay u baajiso weerarada libaaxyada. Sanadii 2015 ayuu sameeyay tijaabo, waxaana u soo baxay natiijo wanaagsan. Libaaxyada waxay dileen 3 neef oo ka mid ah 39 neef oo aanan midabka la marin, hase yeeshee hal neef xitaa kama aysan dilin 23 neef ee kale ee gaarka loo xareeyay ee gadaal looga sawiray indhaha. Master Jordan oo ka tirsan jaamacad ku taalla Australia ayaa daraasadda sii ballaarinaya, wuxuuna lo'da ku xirayaa qalab lagula socdo dhaqdhaqaaqooda si uu u hubsado sax ahaanshaha xogta uu daabacayo. Balse xeeldheerayaal kala duwan ayaan weli ku qancin tabta Master Jordan, waxaana dadkaas ka mid ah Master Mills oo u dhashay Koonfur Afrika. Wuxuuna sheegay in libaaxyada ay yihiin dugaag fursad gaad ah isla markaasna ka faa'iideysan kara xaalado badan. Kevin Richardson oo ku takhasusay dabeecadaha libaaxyada ayaa isna qaba in fikraddan ay shaqayn karin. Daraasado badan oo aan sameynay ayaan ku ogaanay in libaaxyada ay durba wax bartaan yihiin kuwo wax garta. Hal mar waad qaldi kartaa, balse mar labaad ma qaldi kartid, ayuu yiri. Paul Finston oo ka tirsan khubarayaasha wax ka og libaaxyada ayaa isna yiri, libaaxu waxyaabaha cusub tuhun ayuu ka qabaa. Marka koowaad waxa ay qiimeeyaan shayga, waxayna markasta jecel yihiin sida ugu badbaadada badan naftooda.